بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وأنيقو محمد شيخ عبد الله وما تلقى ندكو بلابي دونا كورس كاسو نقون دونا متحنا وأنواد دونا كويك بوك أونلاين. ما تنحن قادم دونا 10 كان يقولي كورس كاسو introduction of quick book online هرعا quick book online. waxaynu ku soo qaadan doonaa dhowr waxyaabood oo ay ka mid tahay quick book online waxa uu yahay, sidoo kale faa'iidooyinka uu leeyahay iyo cid rabta inay isticmaasho waxyaabaha looga baahan yahay. quick book online waa barnaamij xisaabeed loogu talagalay in lagu xisaabsado ganacsiyada noocyadiisa kala duwan, waxaan laga leeyahay dalka USA. faa'iidooyinka quick book uu leeyahay ma aha mid aan halkan kusoo koobi karo, laakiin faa'iidooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah inaad la socon karto dhaqdhaqaaqa ganacsigaaga adigoo jooga dunida daafeeda kala duwan, sidoo kale inaad isku haleyn karto oo aad marnaba ka baqaynin in xogtaada kaa lunto. waxaa kaloo ka mid ah waxa uu kuu sheegi doonaa inaad faa'iiday iyo inaad khasaartay. waxa uu kuu sheegi doonaa hanti shirkadda ay leedahay meesha ay marayso. waxa uu kuu sheegi doonaa deynta lagugu leeyahay inta ay tahay. sidoo kale waxa uu kuu sheegi doonaa amaahda kaa maqan ee macaamiishaada kaaga maqan inta ay tahay. waxa uu kaloo kuu sheegi doonaa macaamiishaada kuwii ugu fiicnaa ee sida fiican wax kaaga iibsaday. waa barnaamij ku kala baraya macaamiishaada. sidoo kale faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah in xisaabaadkaaga uu si sax ah kugu nidaamiyo, in xisaab xirka uu si fudud kugu sameeyo. waxaasoo dhan waa faa'iidooyinka uu leeyahay quick book online. sidoo kale quick book online adeegyada ay bixiso waxay u kala qaadaa saddexdan: 1 simple start, 2 essentials, 3 oo plus. simple start ayaa ah kan ugu yar, waxaana loogu talagalay shirkadaha aadka u yar ama shirkadaha bilowga ah. essentials ayaa ku xiga, waxaana loogu talagalay shirkadaha dhexdhexaadka ah ee muddo soo shaqeynaya. balaaska ayaa ah kan ugu weyn, waxaana loogu talagalay shirkadaha aadka u waaweyn. laakiin saddexdaani midkaad isticmaaleyso adiga ayaa go-aankiisa iska leh. ganacsigaaga oo yar ayaad isticmaali kartaa balaaska, sababtoo ah saddexdaani waxa keliya ay ku kala duwan yihiin ayaa ah featureska oo mid kale uu ka duwan yahay. sababtoo ah ganacsi yar iyo ganacsi weyn isku baahi ma naqon karaan. simple startigu baahidiisa halkaana lagugu soo koobay, waa ujeeda aad bay u yaryihiin featureskiisu. essentialskuna waa ujeediin inuu simple startigu uu ka badan yahay. sidoo kale balaasku waad ujeedaan inuu yahay kan ugu badan. waxaa kaloo ku kala duwan yihiin ayaa ah capacityga ama inta shay ee lagu xareyn karo, oo midba midka kale uu ka duwan yahay. sababtoo ah suurtagal ma aha ganacsi weyn iyo ganacsi yar inay awoodooda wax xareys oo capacitygooda inuu same noqdo suurtagal ma aha. marka mid kale waa uu ka capacity weyn yahay. waxyaabaha kale oo aadka muhiimku ah waxaa ka mid ah inaad ogaato simple startigu waxaa loo ogolyahay for 1 user plus your accountant. hal user iyo hal xisaabiyo ayaa loo ogolyahay. essentialsku waxaa loo ogolyahay for 3 users plus your accountant, 3 user iyo xisaabiye. sidoo kale balasku waxaa loo ogolyahay for up to 25 users plus your accountant, wax ku dhow 25 user iyo xisaabiye. waa ujeedaa marka saddexdu inaysan isku mid ahayn, laakiin marka la isticmaalayo waa isku mid, laakiin baahiyaha ayay ku kala duwan yihiin. adi waa inaad ogaataa in saddexdaani aysan waxba ku kala duwaneyn, oo aan ka ahayn in midba midka kale uu ka features badan yahay. sababtoo ah midba mid kale waa uu ka baahi badan yahay. sidoo kale midba mid kale uu ka capacity badan yahay, sababtoo ah baahiyahooda ayaa kala badan. marka intaas oo keliya ayay ku kala duwan yihiin, laakiin sida kale waa isaga mid. mid haddaa barato midka kale waa taqaanaa. laakiin nooca anagaan isticmaali doono oo aan koroskeena ku bixin doono wuxuu noqon doonaa essentials. sidoo kale shirkadda quick book waxay ku sameysay 50% oo discount ah.
soo marka hore simple starti wuxuu ahaa $15 bil kasta, hadda waxay ka dhigtay $7.5. essentials wuxuu ahaa $23, hadda waxay ka dhigtay $11.5 bil kasta. plus wuxuu ahaa $31, hadda waxay ka dhigtay $15 bil kasta. soo haddii aad tahay ganacsade waxaa ku wanaagsan inaad barnaamijkani iibsataa. laakiin haddii aad tahay qof doonayo inuu barnaamijkani baraatikeeyo oo uu barto doonayo, haddii aad tahay oo aadan ganacsada ahayn, waxay shirkad QuickBook ku ogoshahay 30 beri oo free ah oo aad barnaamijkani ku isticmaali kartid oo aad ku baraatikeyn kartid. soo marka si aad barnaamijkani u isticmaashaa maxaa lagaaga baahan yahay? waa tan koowaade, waa inaad haysataa computer ama aad haysataa mobile, weliba mobilada loo yaqaano smartphones. waa tan labaade, waa in computerkaaga ama mobileka aad haysato oo kuugu xiran yahay internet. soo intaas markaad haysato waxaa kuu sahlanaan doonta inaad barnaamijkani ka faa'iidaysato, waxaa kuu sahlanaan doonta inaad aniga ila socoto. soo cashirkeena maanta halkaas ayaan kusoo afmeerayaa. waxaan idinka codsanayaa inaad channelkani subscribe dhaadaan, videoganna like iyo share dhaadaan. aad baad u mahadsantihiin.